duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso waxa uu dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo xarunta diiwaangelinta qaxootiga oo laga hirgelin doono degmada Xamarweyne iyadoo ujeedka mashruucan uu yahay mid uu maamul gobolka Banaadir ku doonayo in dadka barakacayaasha ay helaan xafiisyo loogu adeego. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhagax dhig kadib kormeeray goobta mashruucan dhismaha laga fulin doono iyadoo uu warbaahinta u sharaxay muhiimadda loo hirgelinayo xarunta diiwaangelinta qaxootiga. ujeedada ka dambeysana ay tahay in bilicda magaalada la soo celiyo isla markaana dhismaha hay'adaha dawliga ah oo bulshada loogu adeegayo magaaladan Muqdisho ay hesho. annaga maamul gobolka Banaadir hadaan nahay maamulkii shacabka in loo adeego oo loo dhiso hay'adihii loogu adeegi lahaana waa midaan mudnaan gaar ah siinay. mashruucan waa mashruuc muddo soo socday sanadkii hore oo maamulkii naga horeeyay iyo hay'adda IOM-ta ay heshiis wada saxiixdeen oo sidii xafiisyadan loo dhisi lahaa. marka qorshahaas maanta inuu hirgalo oo annaga aan nasiib u yeelano inaan dhagax dhignana waxay noo tahay fursad. sidoo kale waxay fursad u tahay shacabka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dhalinyarada qaxootiga oo loogu adeegi doono. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso ayaa dhagax dhigay masjidkii iyo dugsigii Qur'aan Kariimka oo ay qarxiyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab oo ay ku dhibaateeyeen caruur iyo dad ku cibaadeysanayay koodii bishani. gudoomiyaha degmada Horwadaag Cabdikariin Cali Kaari oo warfidiyeenada la hadlay ayaa tilmaamay in Al-Shabaab aysan hor istaagi karin hiigsiga iyo horumarka caasimadda. degmadii oo aan wali far la saarin, degmadii oo aanan taaban inaanu dhagax dhigno masaajidka islaamnimadeena ay calaamad u tahay. waxaanu ballan qaadaynaa haddii la haydmo masaajidka dadka degmada degan, dadkii ku tukan jiray, kuwii caruurtoodu dhigan jireen, kuwii degmada adeega u iman jiray, kuwii ka shaqeynayay intaba masaajidka u ahaa inay dhismihiisa ka qayb qaataan oo ay dhisaan si isxilqaana iskaa wax u qabso isxilqaan hadba qof sida ay ku habboon tahay inaanu u qabanno. duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso waxa uu sheegay in talaabada lagu dhisayo masjidkani iyo dugsiga Quraanka uu qayb ka yahay baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. annagoo ka duuleynaa baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in si isxilqaana lagu dhiso masaajidka iyo dugsiga Quraankaba waxaan hadda ballan qaadnay bilownay in dhismihii masaajidka uu bilaabanayo laga bilaabo maanta. shacabkan waxaan ugu baaqaynaa inay kaalintooda ka qaataan oo si isxilqaannimo ah nogala shaqeeyaan. maamulka gobolka waxaa ka go'an in shacabka loo adeego. si shacabka loogu adeegana cid allaale ciddii shacabka waxa yeelanaysana inaan ka hortagno. argagixiso waqtigiina waa dhammaaday, magaaladana waa isku tashatay, shacabkii waa idin diideen. waddankan waxa kaliya idin furan waxay tahay inaad nabadda qaadataan oo aad qoryaha dhigtaan, bamka dhigtaan, shacabka allaaynaysan aad joojisaan oo aad ka qayb qaadataan nabaddii horumarka. haddii aad diidaan annaga waa soconaynaa, cid aan u joojinayno ma laha nabaddii horumarka caasimadda. waa mahadsantiin. Nuur Saciid Taaliil, SNTV, magaalada Muqdisho.